ciyaartooyga xulka kubadda cagta Puntland markii saddexaad ay rabaan inay koobka kanu finalkiisa gaaraan. galmudug waa markii ugu horeysay taariikhda oo ay doonayaan ciyaaraha kan. intay ciyaaraha kan soo socdeen waxaad arkaysaa in mataqaanaa maanta labada gool la dhaliyay ku yihiin 13 gool oo ciyaaraha kan laga dhalinayo ayay maanta marayaan. ogowna inta ciyaaraha socdaan waxa la bixiyay 17 kaar ayaa la bixiyay 16 waa jaalle halna waa roose inta ciyaarahan soconayeen. وكان ciyaartooyga xulka kubadda cagta Puntland si fiican buu ka tooreynaya kabiirka weyn ee xulka kubadda cagta Puntland waa nin runtii khatar badan oo aanaba aan caadi ahayn. maxamed faarax cali عندي سلام هاي سكر نكاس وحلو دوبين هاي بروني وانكاس يا غاي aad buu u khatar badan yahay geedka ragga ugu khatarta badan ayuu kamid yahay xulka kubadda cagta maxal raday Puntland oo ciyaaraya. وكان galmudug waa reebteen ciyaarta iyaga baana weerara afka hore goolka laakiin difaaca xulka kubadda cagta Puntland baa hor jooga. no waa awoodi waayo ciyaartooyga xulka kubadda cagta ee galmudug inuu kubadda hore u sii jiido balse fooriga ka baxdayo ciyaartooyga xulka Puntland ayaa soo qaadanaya. xeeraan ayaa maqan maanta Puntland laakiin hawshu way caabaya ciyaartooyga faraha badan ee muhiimka ah ee xulka Puntland matalaya sida Guuleed Maxamed وقولد محمود إيو عبد الكريم إيو توكل إيو محمد فارح إيو رجع قطرت بدأ باتشوجا وحا مقام ما أنت بياني عيارتوجا اللمبر كسدح إلا باتنادي حلك كوبدا عت بونتلان لاعب كلو مجاعو محمد عبد حسن أي الله كانوا الله ضيا وحاس الله الله كابتن كلمبر كشان يتراد وتا عبد الله أبو بكر يوسف وعبد القادر وياني وكان مركل عيارتوجا بونتلان وكان مركل سفي عن أيوسو كلين استقرين هيا عيارتوجا بونتلان وحي شغلين درب جسا قعن بيليهم لكن والله ديريا وين واسعريا عيارتوجا حلقة بونتلان شاء الله والله سينيا بونتلان عيارتوجا شاء الله والله سينيا وليبا كابتنكا يا وقيلين يوحوا اللي قعن بيشغلين عيارتوجا بونتلان لكن والله قديريا شاء الله يلا سينيا عبد القادر يوسف كابتنكو وحو عرواه وعرض وحو اللي يوا بينالتي يا ويباستنا ين عيارتوجا حلقة بونتلان ويباستر واكا مكا يقبع عياريا وعيار قرينيا ولي بونتلان ولي اسم الديبيان بودلان وليس بدي بيان ما كان وقلمدو أفكار الجولك وسي سعونيان قلمدو بيسوب باستنيان إيريدان كوديبه جيس كده عن قاتل إليهن لكن وكا كابتنكم الديري مدتا واي عياريان عيارتوجا حلقة بودلان لباحيدو باسو عيار قلينيا لباحيدو كلنا جول بيليهن واللي بيلواحو شوف كده جاي سهميه ما كان وكان عيارتوجا حلقة بودلان خالد بالصينية عيارتوجا بودلانو قلمدو والله قد جايا وعيارتو جوي وسي سعونيسا وعارسن طبعا طبعا يتضبط عيارتنا كهرسن oo muhiima dhaliyaha goolka maanta wuu qeelinaya ninka lagu magacaabo maxamuud ahmed ninka maanta goolashu dhaliyay aad buu u ciisho u diiday oo qeelinaya waa kan ciyaarta maanta وكان عيارتي وينت مانتي تاريخي هاي waxaan ku leeyahay qofkii qasta oo Puntland taageeraya live kana kala soconaya Facebook-eena Astaan Sports waxaan leeyahay wali hanidi jabin banooniga waa nacalabu qofka galmudug taageera waxaan leeyahay waxaad haysataa maalin muhiimsan waxaad u socotaa guul waxaad haysataa waqti aad u wanaagsan wallahi yar ciyaartooyga xulka kubadda cagta Puntland waa ka goolka dhaxdiisa waa laga diidayaa ciyaartooyga وكان عيارتوجا حلقة كوبدا عكتي بونتلان ويدي بيان جول كلو عيارتان كدشتا عيارتي بودليا هدي بولنا رنتي بدل كلا أيو سمينيا توبرا حلقة بونتلان يعقوب عثمان أيام ما انطلع ساري عبد الرحمن محمد مرك خارو حدوم بحتى يتوبرون يسبدل السمايو مرك هدو بدل السمايين كرو وكان رنتي بونتلان waxay raadinayaan gool
buntland ay waqti baa ku haya, buntland ay waqti baa ku haya, buntland ay taariikh inaad samayso. weli waxaa kaaga harsan 12 daqiiqo, 12 daqiiqo fursad u haysataa inaad ciyaartan u bareejayso oo aad ka dhigto 2 gool iyo 2 gool. galmudugay 12 daqiiqaad u jirtaa inaad gaarto finalkii ugu horeeyay taariikhdooda. galmudugay habeenku waa laga ooyi doonaa meelaha qaar, meelna waa laga farxi doonaa, laakiin waxaan ku leeyahay banoonigan aaryada lagu shubay habrahaynu waa ka yahay. waxay ku leeyihiin muxuu yahay banoonigan daba ordaysan, muxuu yahay leedahay waa banooni aarya lagu shubay unba. waa kan galmudug, waa kan galmudug afka hore goolka, laakiin waa ka dheereeya goolhayuhu puntland ayaa soo ciyaar gelinaya. waa kanay soo ciyaaraya caguuleed maxamed aadan waa soo tuuray ciyaarta. banooni waa nacalabuug kan goosha loo haysta siinin guusha, kan goolku lagu haysniin wax kasta macquula. banoonigan waa nacalabuug daqiiqad kasta wejigeedu bay leedahay. runtii goolhayuu xulka galmudug waqtiga ayuu